maxayna u dareennaa murugo ama niyad-jab marka aan soo xasuusanno waayihii hore ee nolosha. waxaa qasab ah marka aad dib u milicsato xaalad ama dhacdo aad noloshaada horey ugu noolayd, marka aad soo xasuusato inaad dareemayso murugo xataa haddii aad ku noolayd nolol farxadeed. ugu horrayn, xaaladda noocaana ee sababta diiqadda ama welwelka waxaa lagu magacaabaa nostalgia. haddaba waa maxay nostalgia? nostalgia waa laba eray oo laga soo maanguuriyey luuqadda Giriigga, taas oo marka la kala qaado noqonaysa nostos oo macnaheedu uu yahay soo noqoshada, iyo algos oo macnaheeda iyadana loola jeedo xanuun, marka la isku qabtana noqonaysa xanuunka soo noqoshada. nostalgia waxaa lagu macneeyaa dhowr arrimood. mid haddii aan dul istaagno waxa ay noqonaysaa waa xaalad dareen ah oo qofku uu qatimayo ama uu rabayo in waayihiisii hore ee nololeed dib loogu soo celiyo. sida laga soo xigtay daraasad ay samaysay cilmibaarayaal bishii Febraayo ee sanadkii 2020 laguna daabacay majalada cilmu nafsiga bulshada, ayaa waxa ay sheegaysaa in xaaladda dareenka ee nostalgia ay la xiriirto qofka waayihiisii hore ee nolosha, ayna keenayso saameyn taban ama dareen xun oo muujinaya xaalad qoomamayn ah iyo niyad-jab. daraasaddu waxa ay sii qeexday in dadka qaba xaaladdan dareenka noloshoodu ay inta badan ku qaataan xaalad kelinimo, qawaaf iyo cabsina ay ka qaadaan dadka hareerahooda ku sugan, ayna ka walwalaan aayatiinkooda dambe. waa maxay sababta isku xiraysa dareenka murugada iyo xasuusta? sida uu ku tilmaamay maqaalkiisa qabiir nostalgia ah oo lagu magacaabo Christian Bacho, maqaalkaas oo lagu daabacay majalada cilmu nafsiga ee Mareykanka, ayaa sheegaysa in xiriirka ka dhaxeeya nostalgia iyo niyad-jabku ay tahay mid qofka dib u xasuusinaya dhacdooyinkii hore ee nolosha uu soo maray iyo sida uu u wajahay caqabadaha adag, isla markaasna uga soo gudbay marxaladahaas. ugu dambeyntii wuxuu ku soo gabagabeynayaa Christian Bacho in wixii hore ee nolosheenna aan soo marnay aan dib loo soo celin karin haba yaraatee, waxna aan laga bedeli karin. haddii aan soo xasuusanana ay nagu keenayso xaalad niyad-jab iyo qoomamo ah. haddii aad ka heshay muuqaalkan like dheh, fadlan sidaas ha samayn. haddii aad muuqaalkan daawato, haweeney lagu magacaabo Thompson waxaa khiyaanay ninkeeda, kadibna sun ayay qaxwada ugu dartay. markii ay ka soo muuqdeen calaamadihii lagu garanayay in qofka la sumeeyey, ayay u kaxaysay meesha daldalaadda oo ku dhex tiilay beer ay iyagu lahaayeen. kadibna intay xarig qoorta u surtay ayay dab u horisay, kadibna kursiga uu ku taagnaa ayay ka riixday. ka hor inta aanu qaadan neeftiisii ugu dambaysay ayay xabad ku dhufatay. markaasuu ninkaasi dhintay isaga oo la sumeeyey, la gubay, la daldalay oo la dilay. bal ka waran, halahaas oo dhan masayr leela marooya. haddaba daawade, miyay ku saxan tahay go'aankeeda gabadhani? haddii uu muuqaalkan ku soo gaaray like dheh. sanidiin.